saaxiibada waa salaamantiin meel kastoo dunida daafiyada ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena maxaa cusub fanka hindiya intaan guda gelin barnaamijka haddaa janalka cusub taa subscribe noo saaraan ilowin inaa muuqaal kale noo saarto marka hore saaxiibada qiimaha badan waxaan update idinka siin doonaa aflaamta bisha kaabe nagu soo haysa OTT-ga lagu soo fasaxay dan labo film oo weyn aan wada sugeynay ayaa OTT lagu soo fasaxay doonaa saaxiibada qiimaha badan filmkii weynaa Vikram all time blockbuster noqday Kamal Hassan oo ku xarikay sidoo kale ku soo rogay muddo 4 sano ka bacdi waxaa hadda si official lagu dhawaaqay filmkan Vikram in laga daawan doono barta loo yaqaan Disney Plus hoosta bisha July kaabe nagu soo haysta taariikhda markii ku aasaasan 8 July ayaa laga daawan doonaa sida shaaca laga qaaday filmkan saaxiibada qiimaha badan Kamal Hassan ayaa ku soo rogay sidoo kale waxa door ku lahayn filmkan Fajeesta Bato sidoo kale Fahad Faasil xitaa saaxiibada Sooria filmkan muuqaal martay oo kala sida daraadeeda hadda waa official meel ku xariiqda filmkii weynaa Vikram waxa laga daawan doonaa barta loo yaqaan Disney Plus hoosta 8 July ayaa laga daawan doonaa sida hadda shaaca laga qaaday filimka labaad saaxiibada qiimaha badan waa filimka lagu magacaabo Anteso Dronaki oo hogaamiye ka yahay Natural Starnan filimkan saaxiibada qiimaha badan ganacsigiisa heerka laga filay uu gaar waa sidoo kale filimkan wuxuu noqday filim dadka qaadan kasta wali u tiyaatar iska saaran yahay haddaba official saaxiibada filimkan Anteso Dronaki waxa gacanta ku dhigtay shirkadda wadda badan lagu magacaabo Netflix sidoo kale asna waxa si official lagu dhawaaqay 8 July ee bisha kaabe nagu soo haysa ayaa laga daawan doonaa barta loo yaqaan Netflix sida daraadda saaxiibada meel ku xariiqda Anteso Dronaki sidoo kale Vikramna 8 July ayaa saaxiibada lagu soo fasaxi doona OTT-ga sida hadda shaaca laga qaaday isla ciwaanada jir saaxiibada qiimaha barnaamijkan ku soo qaadan karno waxa kamid ah official Deepika Padukone laba film on the way oo sidoo kale big movie ay saaxiibada qiimaha muuqaal martay ku yeelan doonta sida hadda shaaca laga qaaday Deepika Padukone saaxiibada qiimaha badan oo mid kamid ah tirishooyinka ugu awoodda badan fanka Hindiya ay haystaan sida daraaddeed tirishada saaxiibada qiimaha badan waxa shaaca laga qaaday filimka Jawan oo SRK hogaamiye ka yahay inay muuqaal marti ku yeelan doonto sida hadda shaaca laga qaaday saaxiibada qiimaha badan SRK Deepika Padukone hadda waxa uu diyaarsan filimkooda weyn lagu magacaabo Batan kaas oo la daawan doona horaanta sanadka cusub 2023 sidoo kale tirishada saaxiibada qiimaha badan waxay ku sugan tahay dhankaas Hyderabad waxayna doos ku wadaa filimkeeda project كيسي أدراد صاحبة قيمها بنجدا وحال سو حريرين SRK أما شاروقان سيدو كلا اللي دايركتور ك لغو مقعايا سو أيالا سو حرير تريشان سيدو كلنا وحالو صبان يعني الدور يركو يالتا سيدو كلا سبيشال muuqaal yar oo martina ku yeelata filimkan John ayaa la soo bandhigay Deepika Padukone sida daraadii saaxiibada qiimaha badan Deepika way aqbashay sidoo kalena shabakada Bimka Villa ayaa warkan soo dawacay sida daraadii saaxiibada qiimaha badan Deepika Padukone waa official filimka Ranbir Kapoor hogaamiye ka yahay lagu magacaabo Brahmastra wixii ku yeelan doonta muuqaal marti sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimka Jawan SRK hogaamiye ka yahay wixii ku yeelan doonta muuqaal marti ay ku yeelan doonta taasoo ka dhigan saaxiibada qiimaha badan labadan film hadalhayntooda cirka sare ay gali doonta maadaama Deepika ay kamid tahay tirishooyinka ugu awoodda badan fanka Hindiya waqti xadirkan ay haystaan ciwaanada kale saaxiibada barnaamijkan ku soo qaadan karno waxa kamid ah wiilka lagu magacaabo Fajeesta Farganda culays badan ayaa saaran ninkan saaxiibada qiimaha badan shaqaan hadda wuxuu dhameystay filimkiisa weyn lagu magacaabo Lagar sida daraaddeed ninka taageerayaashiisa waxay culays ku hayaan filimkan wali wax laga maahay wax loo yaqaan teaser ama goosgoos sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan waxa la 10 maalmood nagu soo foodle filimkan Lagar wax laga soo bandhigi doona goosgoos holaciis wata ogaada filimkan saaxiibada qiimaha badan waxa muuqaal marti ku leh ninka rugcadaaga sidoo kale feeryahanka lagu magacaabo Mike Tyson sidoo kale filimkan saaxiibada qiimaha badan Fajeesta Farganda waa film uu boxer ama feeryahan oo ku matali doona sidoo kale ogaada filimkan Lagar waxa la daawan doona 25 Agoosto ayaa la daawan doona sidoo kale filimkan saaxiibada qiimaha badan waa film baan indoola imaan doona wiilka Mintuule ila magaalada filimkan laga daawan doona sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan indhaha dhamarkan waxa lagu wada hayaa Fajeesta Farganda filimkiisa Lagar maadaama hadda shaac laga qaado 10 maalmood nagu soo foodle filimkan waxa loo yaqaan teaser ama goosgoos ayaa laga soo bandhigi doona saaxiibada qiimaha badan aniga ninka lagu magacaabo Talavi Fiji waa ishaafi maanta mar kale oo saddexaad waxa laga soo bandhigay filimkiisa Farisu kaartadan horteena ka muuqata ayaa laga soo bandhigay ninka odayga saaxiibada qiimaha badan oo xarakeena sidoo kale ninkan taageerayaashiisa maanta aad u daaway maadaama saaxiibada qiimaha badan 3 kaarta ayaa laga soo bandhigay filimkiisa Farisu ogaada saaxiibada qiimaha badan filimkan Talavi Fiji ayaa hogaamiye ka sidoo kale waxa tirsho kuwadka gabar lagu magacaabo Rashmika Madana sidoo kale ninka lagu magacaabo Barkash Raj inta badan Soomaalidu u yaqaanana seerta doray kuleeyahay filimkan xitaa shacabtaraha Yogi Babuna filimkan doray ku ayuu kuleeyahay sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan kaartaan kale oo saddexaad horteena ka muuqata ayaa laga soo bandhigay ninkii ahaa Talavi Fiji sidoo kale filimkan waxa la daawan doonaa 2023 feesta loo yaqaan Bengal oo reer Tamil ay dhigtaan ku beegan horanta bisha Janaayo sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan taageerayaasha Fijina mar kale ayaa maanta la daaweeyay
anada kale saaxiibada barnaamijkan kusoo qaadan karno waxaa kamid masmahara jarafi teja spag markaa ninkan saaxiibada qiimaha badan uu soo laabtay maadaama jalaaga waxa u diyaarsan filimkiisa actionka trailerka iskugu jiraan filimkiisa lagu magacaabo Ramaro oo undhigto sida daraadeed hadda oo official filimkan waxaa la daawan doona 29 bisha July ka binagu soo haysan ayaa la daawan doona sida shaaca laga qaaday ogaada saaxiibada qiimaha badan masmahara jarafi teja filimkiisa ugu dambeeyay qalaadi dadka ay ka qaaday sasaray ku noqday sida daraadeed ninkan hadda filimkiisa labaad saaxiibada qiimaha badan ku soo rogal celin doona filimka lagu magacaabo Ramaro oo undhigto sidoo kale filimkan 29 bisha dambe ayaa la daawan doona filimkan kaliya dhankaasi goolka loo yaqaan Telugu ayaa laga daawan doona kaliya saaxiibada qiimaha badan hadda waa official filimkan Ramaro oo undhigto waxa la daawan doona 29 bisha dambe sida hadda la xaqiijiyay ciwaanada kale saaxiibada qiimaha badan soo qaadan karno waxaa kamid ah jalaag lagu magacaabo Jian Fikram Likit waxa lagu sameeyay filimka lagu magacaabo Bunyan Silfan sidoo kale sawirkan hortaan ka muuqda ayaa saaxiibada qiimaha badan filimkan laga soo xaday saaxiibada qiimaha badan filimkan Bunyan Silfan waa filim weyn sidoo kale jalaayal badan ayaa la isku keenay sidoo kale Jian Fikram waxa kamid yahay jalaayaasha filimka wax ka jalaay xitaa filimkan waxa directorka lagu magacaabo Manin Ratnam saaxiibada qiimaha badan ninkii ahaa Jian Fikram saaxiibada qiimaha badan sawirkan hortaan ka muuqda ayaa laga soo xaday filimkan waa ninkii timo ay gudeysay sidoo kale garkana oo ka baxay saaxiibada qiimaha badan sawirkan ay inta badan maanta wax loo yaqaan likid lagu soo sameeyay la soo xaday sidoo kale baraha bulshadana waa la soo dhigay ogaada filimkan Bunyan Silfan saaxiibada qiimaha barton waxa la daawan doona sida hadda diiwaangasha 3 September ayaa la daawan doona laakiin jilaagan saaxiibada qiimaha badan Jian Fikram waxa uu diyaarsan filimkiisa weyn lagu magacaabo Cobra kaas oo la daawan doona bartamaha bisha Agosto sida daraadeed maantana sawirkan ayaa likid lagu soo sameeyay la soo xaday social media-hana la soo dhigay أنا صاحب هذا قيمة بن حصل في رندن فيلم كوينا فيكرام صاحب هذا قيمة بن سجال توم المنتياتر وسارين هاي ganacsigiisa halka mar isla fiirin doona ganacsigiisa guud aan ka baari doona filimkan saaxiibada qiimaha badan oo all time blockbuster sidoo kale filimkan ganacsigiisa wax loo yaqaan dibadda marka isku daro saaxiibada qiimaha badan wuxuu soo xiray lacag gaaraysa 370 karoor ayuu soo xiray sidoo kale qolay cajaladaha qiimo waxay ka heleen macaash xadaaf oo gaara 184 karoor ee kale sidoo kale filimkan saaxiibada qiimaha markaan fiirno meelaha ugu badan oo ganacsiga ka sameeyay dhulka laga leeyahay Milnado in ka badan 162 karoor ayuu ka soo xiray sidoo kale suuqa labaad oo lacagaha badan ka soo xaray waa office-ka ama suuqyada caalamka in ku dhow 117 karoor ayuu ka soo xaray sidoo kale saaxiibada qiimaha badan suuqiisa saddexaad dhankaasi kareela maadaama 35 karoor bar ayuu ka soo xaray Telugu wuxuu ka keenay lacag gaaraysa 27.60 karoor ayuu ka soo xaray sidoo kale saaxiibada Hindi inteeda kale filimka wuxuu ka keenay lacag gaaraysa 7 karoor sidoo kale Karnataka wuxuu ka keenay 19 karoor sida daraaddeed filimkan ganacsigiisa guud wax loo yaqaan dibadda marka la isku daro 370 karoor ayuu soo xaray qolay cajaladaha qiimo waxay ka heleen saami gaaray 184 karoor sidoo kale filimkan Fikram saaxiibada qiimaha badan oo all time blockbuster am darajada ugu sareyso oo film gaari kara ayuu gaarsida daraaddeed meel ku xariiqda filimkan Fikram Kamal Xasan ku xarikay 8 bisha July ka bin ugu soo haysay barta OTT laga daawan doono special barta loo yaqaan Disney Plus xariijinta qoliyaha aflaam tarjumarka filimkan OTT lagu soo fasaxay inay noo soo turjumaan si daawashada filimkan ugu raaxaysano wad kuma santin saaxiibada daawashada daawatan muuqaalka halkaas nagu dhan barnaamijkan maxaa cusub fanka Hindiya hadaytay markii kugu soo boqon channelkan subscribe na saar sidoo kale login ina muuqaalka laga noo saarto aragtada comment noo reeb hadaa kamid ah saaxiibada horna la joog muuqaalka shaarisa saaxiib wanaagsan adigoo kale channelka ugu soo biran inta barnaamijka barnaamij lamid ku kulmeyno amaana Allah salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh